asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. maalin wacan oo wanaagsan dhammaantiin meel kasta joogtaan kusoo dhow kanaalkeena youtube-ka Ali Ase online oo idin soo diyaariya anigoo ah cali maxamed ismaaciil baashi. insha allah videogan maanta waxaa kusoo qaadan doonaa su-aal uu soo weydiiyey mid ka mid a walaalaha ku taxan kanaalkeena youtube-ka Ali Ase online. walaalkan oo la magac baxay axmed aadan cismaan. axmed aadan walaal waa mahadsan tahay. su-aashiisana waxay ku saabsan tahay in aan video kasoo sameyno sida loo isticmaalo Google Sheets. hadda kahor waxaa video kasoo sameynay sida loo isticmaalo Google Calendar, Google Docs, Google Forms iyo Google Chrome. maantana waxaa soo qaadan doonaa Google Sheets. had iyo jeer kanaalkan waxaa kusoo qaadanaa videoyaal lagu baranaa markaas teknolojiyadda, videoyaal dhiirigelin iyo kuwa aad naga soo dalbataan, su-aalahana soo weydiisaan ee maaragtay oo aad naga soo dalbanaysa inaan videoyaal soo sameyno waa qadarnaa oo list ayaa gelinaa. markastana waxaa soo sameynaa mid ka mid a su-aalahana soo weydiisaan insha allah. waxaa aad iyo aad ii farx geliyay kommentiyada quruxda badan aad soo qortaan iyo dacooyinka aad nala soo wadaagtaan. aad ayaa ugu mahadsantihiin. waxay noo tahay run ahaantii dhiirigelin si aan usoo diyaarino videoyaal kaloo aad iyo aad u tayo badan. ka hor intaanan videogan maanta gudagelin waxaa jeclan lahaa marka hore inaad kanaalkan subscribe ku noqoto si videoyaasha ugu dambe ay kuu soo gaaraan. sidoo kale haddii aadan ilaa dhammaad kasii daawan doonin fadlan nagu taageer inaad like saarto si videogan uu u gaaro dadkii u baahnaa markaas. waana mahadsan tahay. okay, ka hor intaanan gudagelin isticmaalka Google Sheets, marka hore waxaa lagaaga baahan yahay in aad haysato Google account ama aad leedahay Gmail. haddii aadan Gmail lahayn ama aad aqoon sida loo sameysto, hadda kahor waxaa kasoo diyaarin video, linkiga hoose ayaa soo dhigi doonaa sida loo sameysto Gmail. markaas kadib waxaa fursad u leedahay inaad isticmaasho Google Sheets ama applicationada kale aad soo sheegnay sida Docs, Forms iyo Google Calendar. waxyaabahaas oo dhan waa free, waxaana ka heli kartaa 3 qaybood. kow, waxaa ka heli kartaa sida halkaas dhibac dul saaran ayaa furaysaa ama aad furaysaa Google Apps, meeshaas ay ku jiraan ayagoo badan meeshan ay joogaan. okay, hadda kahorna waa soo sheegnay applicationadan maaragtay waa la qaadi karaa, booska waa laga bedeli karaa iyo maaragtay midkaa rabto waa free. kaliya waxaa lagu xirayaa inaad haysato Gmail. okay, barnaamijka ama applicationka soo qaadan doona waa kana Google Sheets, ama waxaa ka furi karaa waxaa tagayaa Google Drive. Google Drive markaa furo waxaa tagaynaa Google Drive-keyga, waxaa igu jira faylashaas oo dhan. markaas kadib waxaa ka furi karaa new qaybtaas sare bidix, kadib Google Sheets. falaartaas markaa sii taabto ama ku aadiyo waxaa soo baxay blank sheet from template. hore kuwa loo diyaariyay ma rabtaa mise template inaad kasoo mise mid cusub oo blank inaad samaysta rabtaa oo waxba ku qorneen. okay, qaabkaas waa u furi kartaa ama waxaa samayn kartaa sida ugu sahlan oo aad jeclahay. waxaa waay sheets ayaa qoraysaa .new. okay, wuxuu keenayaa sheet cusub. qaabo badan ayaa loo furaa. 3daas qaab ayaa maaragtay inta badan loo furaa. 9 dhibac markaa furto Google Drive ama toos ayaa sheets.new ayaa qori kartaa. okay, markaa soo gasho Google Sheets, gudaha markaa usoo gasho wuxuu u yahay sida Excel-ka oo kale, waana free, wax lacag lagama baahna. sida soo sheegnay waxaa u baahantahay kaliya Google account. wax kasta Excel ugu baahan tahay meeshan ayaa ka heli kartaa. online ayaana ku save garaysan kartaa. sida u save garayn lahayd waxaas oo dhan waa kusoo laaban doonaa. okay, marka ugu horeysa aad soo gasho Google Sheets, qaybtan sare ugu sareysa waxaa ku qoraysaa faylka magac ayaa u sameysanaysaa. magaca u sameysanaysaa. hadda waxaa u bixinaynaa tijaabo marka magaca ugu qortay magaca rabta uga baxsan kartaa. marka qorto kadib waxaa u fiirso save to drive. hadda rabta drive uu ku save garaysan yahay, hadda automatic uu isku save garaynayaa inuu ka dhumaha ka cabsan. kadib waxaa sameynaysaa xidigta ayaa saari kartaa. xidigta markaa saarto faylashaada ugu dambeeyay aad furtay kuwa ugu sarreeya ayaa lasoo saaraya. okay, haddii aad rabto folder cusub, waa sida warqad aad dhexgelinaysid galka oo kale. hadda waa tan waa sheet sida warqad oo kale. haddii aad ku sahlo ama si af Soomaali sahlan kugu sheego, waa sida warqad oo kale. folderkana waa sida galka oo kale. haddii aad rabto tijaabo inaad gal cusub geliyo ama folderyaal badan ayaa meesha igu jira hore. haddii folderka aad rabtay aad meeshan ka weyso ama folder cusub inaad samaysan rabto, meesha ayaa tagaysaa new folder. waxaa tagaynaa test 01. okay, kabacdi create. fiirso filekan waxaa ku move garayn karaa test 1. intuu aaday intuu soo galay test
test 1 move ayaa dhahay markaas hadda wuu gale. Okay, hadda marka filekii waxaa ku kaydinay folderkii ahaa tijaabo ama test 1. Okay, haddii aan rabo inaan hubiyo in filekaas oo meesha igu dhex jiro waxaa tagaya waxaa furayaa folderka kadibna qaanada sii taabanaya oo ugu jira meesha folderka magaciisa waa test 1 hal maaragtay Google Sheet ayaa ugu jira. haddii aan rabo mid kale cusub inaan ku daro farta dhinaca midig ayaa ku dhufanaya muuska kadib waxaa taabanaya Google Sheet blank sheet mid kale fura qaanad kale oo cusub ayay furay. hadda u baahni mid ayaa furay halkaas ayaa maaragtay wax ka bedeli doonaa ama wax ku dari doonaa qaanadan naga xir. Okay, marka ugu horeysa aad soo gasho ama Google Sheet aad furto wax ugu horeysa sameynayso waa marka hore inaad magac u bixiso kadibna folder gaa geliso haddii kale waxay noqonaysaa waa iska dhaxyaacayaan. markaa midaad sameyso waxaa ku xiga tilaabada labaad qaybta hoose ayaa imaanaysaa sheetkan magaciis waa sheegna marka hore ciwaankiisa guud waa maaragtay tijaabo laakiin waxaa ku sii hoos jiri karo folderkan qaanado kale badan ayaa ku hoos jiri karo waa sida buugga baalal badan uu lahaan karaa. hadda buugga wuxuu noqon karaa buugga xisaabta baalal badan ayaa gelin kartaa page 1 page 2 page 3. Okay, hadda videoga maanta ma ugu talagalin inaan mid kasta isdul taagno waxaa soo qaadan doonaa oo keliya waxyaabaha aasaaska ah oo maaragtay u baahan tahay inaad isticmaasho sida maaragtay u dhaqsiya badan. Okay, kow qaybta hoose markaa fiirso sheet 1 ayaa ku diyaarsan. markaa furto falaartaas waxaa ka bedeli kartaa sheetka duplicate ayaa ku samayn kartaa ayada camal ayaa maaragtay koobigeeda ama copy to meel kale ayaa u gudbin kartaa waxa ku jiro dhan magaca ka bedeli karnaa waxaa bixin karnaa January ayaa ka dhigi karnaa. haddii arab qaanad kale inaan ku daro waxay noqonaysaa plus ayaa taabanaya sheet 2 rename February. Okay, saasay noqon kartaa. haddii aan rabo inaan February markaa joogo waxaa tagi karaa move left haddaan dhaho qaybtan ayaa la gudbinaya move left. haddaa February joogo move right qaanadaha way sii badan karaan. Okay, markaa tago January waxaa sameyn karaa colorka ayaa ka bedeli karaa January waa green February waa color kale noo door waa blue colorka rabta ayaa u dooran kartaa. Okay, haddana waxaa sameyn karnaa in aan maaragtay protect sheet waxa ku qoran waa xiri karnaa oo waxaa ku xiri karnaa code ayaa ku xiri karnaa haddii aad u baahdo hal qaanad ama hal cell ama laba cell ama godad badan inaa xiro meeshas ayaa maaragtay kaga xiri karnaa. haddii aan rabo sheetkan dhan waa qarin karaa hide sheet wuu qarsan yahay. Okay, haddii aan rabo inaan soo celiyo hideka ama kasoo saaro wixii qarsanaa waa taabanaa meeshaas January way isoo laabanaysaa. Okay, taasina waxay ahayd sida magacyada ama colorka loogu bedelo sheetka qaybta ugu hooseysa ama sheetyal kale loogu soo daro. Okay, Google Sheet kasta waxay ka sameyn yihiin dhammaantood waxay haystaan column iyo rows. column waxaa lahaa kuwan xarfaha wato A B C way badan yihiin ilaa iyo Z ayay gaarayaan. qaybtan kale waa rows 1 2 3 ilaa iyo waxay gaarayaan 1000 ayay gaarayaan. markii loo barbar dhigo Excel waa 1 milyan iyo xoogaa laakiin kan waa 1000 oo kaliya. haddii aad rabto waxaa badsan kartaa Excel sheetka ayaa badsan kartaa haddii aad rabto. Okay, kaasna wuxuu ahaa column iyo rows. u fiirso markaa saddex taabto row saddex dhan taabsan column B oo dhan ayaa dooran. kuwan gudaha ku jiro dhanna waxaa lahaa cells. Okay, cell kastana ama god kastana magac ayuu leeyahay magaciisa waxaa ka arkaysaa qaybtan sare waa sida Excel oo kale. hadda Excelka videogii soo daawatay wax badan inta badan way ka sameyn yihiin. kan waa online kaasna waa application aad soo daadegsan karto Excelka online waa ku shaqeyn kartaa daarabto Excelka naftiisa. Okay, cellka markaad doorato qaybtaas ayaa ka arkaysaa waxaa lagu siinayaa isgoyska ba 4 ayaa lagu qorayaa meesha kulmaan 4 iyo columnka iyo rowga meesha kulmaan ayaa magaca loo bixinaya markaas ba 4 kan waa A1 B3 saasay u soconaya marka mid kasta magac ayuu leeyahay. cell aan magac lahayn meeshan ma ku jiro. qaybtan kale haddii aan rabno cellskoo dhan meeshan wax ku jiro dhan haddii aan rabo waxaa daabanaya oo kaliya qaanadan bannaan ayaa taabanaya kulli waa lii calaamadeeyay. haddii aan wada calaamadeeyo markaas waxaa awoodaa kulligooda inaa naqshada ka wada bedelo isku mar ama hal mar aan wada tirtiro. haddii aan rabo inaa maaragtay cabirka ballaarnida wax ka bedelo waa wada calaamadeyn karaa
markaas maaragtay falaarta markay saas noqoto waa jiidi karaa muuska ayaa farta bidix ku qabanaya waa balaarinaya kulligooda way balaarinayaan u fiirso haddana soo celi way soo wada ceshmaya laakiin u fiirso haddii aad laba keliya aad doorto aad ballaariyo labadaas oo keliya ayaa maaragtay isbedel ku dhacaya laakiin kulligooda markaa ka dhigo wax ka bedelo kulli isku mid ay noqonaya markaas haddaa yaryareyso iyo haddaa weyneysaba okay sidoo kale rowska waa ballaarin karta ayakana cabirkaa rabto oo markaas adiga maaragtay qanciyey ama naqshada markaas ku shaqeynayso ayaa markaas dooranaysaa qoraalada markaas waxaa fiican qoraalada iyo nambarooyinka gelinaysid in la arki karo markaas dadka la wadaagaysid inay si sahlan ku akhrin karaan haddii aad rabo inaad sidiis hore kusoo celiyo ama si u dhow sidii hore waa soo jiida oo keliya oo markaas cabirkaa rabto ayaa geysanaysaa okay kaasna wuxuu ahaa sida selka ama column iyo row wax loogu bedelo markaan waxaa isku dayi doonaa inaan qoraal soo gelino tusaale ahaan kabaro.com websitekan ayaa soo gelinay haddii aan rabo in websitekan qoraalkan maaragtay fartiisa waaweyneeyo waxaa tagayaa qaybtaas font size tagayaa cabirkaa raba ee dooranaya 36 marka hore waa inaa calaamadeynaa kadib fartaarta ay geysan kartaa okay si aa u calaamadeyso hadda u fiirso markaa weyneeyey farti way qarsamtay selka ayaa dooranaya fartu marka waa soo celin karaa sideeda hore yar yar ay noqotay okay u fiirso markii farta aad u weynaato selkaa dooranaysaa kadib farta aad u weynaato hadda ma arki karti meeshaan wax ku jiro haddii aad doorto godka ama rowga kadib loo mar kali ku siiyo wuxuu isiinaa markaas cabirkii oo dhammaystiran si automatic sidoo kale columnka a ayay ku jirtaa u fiirso qoraalka ilaa wuxuu usoo gudbiyay b laakiin b godkiisa wax ku qoran ma laha eega ayaa soo dhaafay xuduudiisa haddii aan rabo inaa la ekeysiiyo waa calaamadeynaya columnka a kadib laba mar ayaa kali ku siinaya saasna columnka a wuu isbedelay okay kabar wax kale maahan waa websitekeena soo dhigno videoyaasha lagu baranayo excel word powerpoint iyo waxyaabahaas oo dhan haddii aad rabto inaad teknolojiyada lagaa caawiyo ama videoyaasha ku saabsan office programs inta ayaa ka daawan kartaa ama websitekaas ayaa soo booqan kartaa insha allah okay kaasina wuxuu ahaa si farta loo soo qoro ama fontiga haddii aad rabto colorka inaad ka bedelo meeshay tagayaa colorka raba ayaa doorayaa markasta waxaa fiican qoraal la aqrin karo oo markii lasoo daabaca si sahlan loo aqrin karo haddii aan rabo inaa farta janjeer ka dhigo italics bold sidaa raba ayaa ka dhigi karaa okay backgroundka haddaan rabo inaa wax ka bedelo backgroundka waxaa ka dhigi karaa madow wax la arkaya ma lahan fontiga ayaa waxaa ka dhigaa markaas caddaan farta godkana waa la ekeysiiyey saasna wax waa yeeli karta sida maaragtay logo camal ayay noqotay markaan okay haddii aan rabo inaa marka koobiyeeyo ama koobi ka qaato qoraalkan waxaa sameyn karaa laba mid waa sameyn karaa waxaa tagayaa godkaa raba inaa wax ka koobiya ayaa tagayaa kadib waxaa tagayaa edit copy ayaa tegeysaa meesha rabta ayaa tegeysaa haddana view ayaa tegeysaa editka paste waa lii keena meeshii laakiin qoraalka ma soo wada muuqan row ayaa columnka ayaa calaamadeynaya kadib laba click ayaa ku siinaya sidiina waa lagu keenay si kale waa sameyn karnaa cut haddii rabto ku sameyn kartaa edit cut u fiirso maqas ayaa ku qoran waxaan loo soo gaabiyey shortcutka command x haddii aad isticmaalaysid windows waxaad taaban kartaa option x cut haddaad taabto waa laga soo jaray boosko dhan hadda waa lasoo jaray god kale cusub ayaa imaanaya waxaa imaanaya row a8 markaa imaado editka tagaya paste meesha loo soo gudbiyey okay markas inaa meesha imaato u baahnid waxaad tagi kartaa godkaa rabta ayaa tegaysaa farta midig ayaa kale ku siinaysaa meeshaasna way kaaga soo muuqan karaan waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabo kala duwan aad ku sameyn karto selkan dhexdiisa okay hadda haddii aan rabo meeshaan hoose maan rabin oo waxaa rabaa inaa meeshiisa hor kusoo celiyo waxaa taaban laba dooq waa haystaa waxaa tagi karaa copy koraa geyn karaa kan aska tiri karaa ama cut ayaa ku sameyn karaa oo markaas meeshii hore ayaa paste ku dhigi karaa ama waxaa taaban karaa ooba kasii sahlan midkan undo wixii aad sameeyey tilaabada ugu dambeysa aad qaaday iga soo celi ma u baahne haddii aadan dhahdo meeshiisa hore ku fiicnaa redo aad dhehaysaa meesha hore lagu keenaya okay
hadda ma baahnin undo naga dheh booskiisa kor ha imaado. Okay, meeshaas noogu hayo. haddii aan rabo in aan maaragtay kolomyaasha kala duwan aan maaragtay sida ugu dhaqaaqi karo, waxaa istaa laba dooq. kow waxaad samayn karaa falaaraha ayaa isticmaali karaa. kora u socon kartaa, hoosna u socon kartaa, midig kor meesha rabta ay u socon kartaa. Okay, haddii aad taabato command, haddaad isticmaalaysid Mac, command haddaad taabato iyo falaarta hoose, qaybta u hooseysa ama godka u hooseeya ayuu goynaa markaas. Okay, haddii sidoo kale isticmaalaysid Windows, waxaa qaban kartaa options iyo falaarta qaybta hoose. haddii aad taabto command iyo falaarta qaybta sare, Windows ta isticmaalaysid option qabo meesha, markasta command dhaho option ayaa u dhigmata Windowska. Okay, command ay qabanaya, Mac ay isticmaal hadda falaarta kor ayaa taabtay, qaybta u sareysa ayuu keenaya. Okay, haddana command ayaa qabanaya falaarta dhinac midig, qaybta u dambeysa ayuu geeyay waa Z. ii soo celi haddaan dhaho meeshii hore falaarta dhinac bidix, meesha uu ka bilowdo muxuu ku keenaya marka qoraalada meesha ka bilowmaan ama seelka ugu horeeya ee wax ku jiro ayuu markaas ku geenaya. taas waa mid. sidoo kale waxaad dooran kartaa muuska ayaa isticmaali kartaa, godkaa rabto ayaa maaragtay toos ugu taabsan kartaa markaas. Okay, waxaa kaloo samayn kartaa xitaa enter waa taaban kartaa, godka hoose inaa u gudub markaa rabto enter 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 waa dhigi kartaa, waqti dheer ay qaadanaysa. ama tab waa taaban kartaa, dhinaca bidix waa u socon kartaa. shift haddaa la qabto taabka wuxuu soo celinayaa booska bidix. u fiirso, shift haddaa qabto oo hoos u socdo wuxuu ii calaamadeynaya godadkaa rabo dhan. shift midig, godadkaas dhan wuu calaamadeeyay, wax ku jiro dhan waa qaadi karaa ama waa jari karaa ama waa tirtiri karaa ama colorka ka bedeli karaa ama backgroundka, waxaa raba ayaa ka samayn karaa. Okay, haddii aan rabo inaan ka baxo waxaa taabanaya oo keliya calaamadaas ayaa god kale ay ku dhufanaya. haddii aan rabo inaad tirtiro godkan wax ku jiro dhan, waxaa samayn karaa waa calaamadeynaya, back ayaa taabanaya ama back space, gadaal u laabo kale. haddii aan rabo backgroundka inaan wax ka bedelo, meesha hore ayay ku laabanaya, waxaa ka dhigi karaa markaas caddaan sidii hore. haddii aan rabo pageka ama sheetkan oo dhan, haddii colorkiisa inaan wax ka bedelo rabo, calaamad meeshaas ayaa taabanaya, kadib waxaa ka dhiganayaa colorkaa rabo markaas oo indhahaada u fiican markaas. Okay, qoraalkan markaas madow ka dhigo si uu ugu soo muuqdo waxaa qoraysid. Okay, hadda aad inuu mugdi u noqdaa dareemaya, waxaa ka dhigi karnaa mid wax yar ka iftiinsan. Okay, markaan waxaa soo qaadan doonaa tusaale yar oo sahlan sida loo isticmaalo Google Sheets ama formulada qaar sida loo soo geliyo ayaa soo qaadan doonaa insha Allah. waxaan soo dii doonaa inaan kusoo qaadano arday markaas imtixaan u fariistay iyo buundooyinka heleen. ugu horeyn marka hore waxaan soo qaadan doonaa iskuulka ee dhigtaa magaciisa, waxaa teganaa meesha uu ku yaalo qoraalkii edit copy, kadib meesha rabta ayaa geysanaysaa paste. Okay, iskuulka magaciisa waxaa la lahaa kabar.com, ardayda dhigacta magaca meeshaas ayaa lagu qorayaa. tab waxaa ku qoraysaa maadada waa xisaab, tusaale ahaan itixaamo kala duwan ayay galeen, Soomaali, waxaa kale ay barteen English. Okay, ardayda magacyadooda marka waxay kala yihiin magaca, tusaale ahaan waxaa dhigi karnaa Cali, Xasan, arday kala duwan, Caasho gabar noogu soo dar, Abdi, Cabdiwahaab, Cabdiqaadir, wax horaba noqon karaa, Magan. waxaa soo qaadanay 1 2 3 4 5 qof ayaa soo qaadanay. maadooyin kala duwan ayay gali doonaan. u fiirso maadooyinka xisaabta meeqay keeneen, meeshaas ayay ku qoraynaa. si aan ugu qorno toos waxaa u samayn karnaa tiro. u fiirso haddaa ku qoro 10 meesha eber ka dhig la, haddii aa og qoro wax dhacay u fiirso meeshaasuu joogayaa. midkan kale 20. u fiirso farqi ku dhexeeya. haddii aa xaraf iyo tiro isku darto dhinaca bidix ayaa lagu haanaya. wax kastoo xarfa qoraal ah bidix ayay joogaan, wax kastoo tira dhinac midig ayay joogaan. Okay, hadda midkan inaad sax markaa rabo godka ayaa dooranaya, kadibna qaybta sare ayaa maaragtay ka siixi karaa. Okay, 10. sidoo kale toos waa ugu dhufan karaa godka, laba mar ayaa keli ku siinaya, wax ku jira waa iska tiri karaa, waxa rabta ayaa markaas ku qoraysaa. markan waxaa isku day doona inaan buundooyin geliyo si random ah, anoo maaragtay loo kala eexanayna magacyada imtixaanka anoon qof ku rideenin. kow waxaa ka soo qaadan doonaa number. intaa number iska siin lahaa waxaa weydiinaya Google Sheets inuu number noo siiyo. formulkan aa soo gelin doona hadda wuu adag yahay, mu baahnid inaa xifdiso, laakiin waxaa u isticmaali doonaa tusaalahan oo keliya.
waana maaragtay qaab ka mid a formulada si loo soo geliyo inkastoo aad formula sahlan aa soo qaadan doono kan uu adag yahay waxa kaliya oo rabna nambaro fiican inuuna siiyo inta magacyadaas oo kale ayaan lahayn si random ayaa usoo gelinaa waxaa dhehnaa equal kadib waxaa qolinaa random between waxaa rabnaa maade xisaab markay tahay waxaa ogsoona ardayda xisaabta inay xoogaa ku adag tahay waxaa dhehnaa 40 ilaa iyo 80 ee imtixaanka ardaydan keeneen okay cali waxaa kusoo aad 45 qaybtaas hoose ayay qaban karnaa ka hor intaan qaybta hoose qaban waxaa samayn karnaa maadaama ay aad nooga fog tahay waxaa samayn karnaa view kadibna waxaa tegi karnaa zoom waxaa ka dhigi karnaa 150 way noo soo dhawaatay okay haddii aad rabto waa wada calaamadan karnaa qaybtan dhan view zoom 200 aad ayay noogu soo dhawaatay markaas okay saan rabnaa kadib waxaa tegaynaa numberkaas naga tir maadaama hadda cali uu helay 45 kadib hoos calaamadaas plus ayay noqotay hadda u fiirso haddii ay gacan tahay waxa god ku jiran ayaa qaadi kartaa laakiin markii aad ku aadiso geeskaas buluuga calaamaddu waxay noqonaysaa 4 gees ama plus kadib click ayaa farta bidix ku siinaysaa hoos ayaa u jiidaysaa okay number kala duwan ayaa la siiyey random numberkii hore xitaa cali la siiyey wuu isbedelay 80 ayuu noqday anaa ugu horeeya markaas waa si random ah Soomaali sidoo kale waxaa samayn karnaa inta ay qabanaynaa dhinacaas hoose midig kadib dhinacayna ugu jiidanaa laakiin u fiirso Soomaali wax ayaa ka bedeli doonaa waxaa ka dhigaynaa in ardayda u dhaxeeyaan 70 ilaa 90 Soomaali maadaama ay ku fiican yihiin Soomaaliga inkastoo qaarkood ee gabayada ardaydan ku adag tahay waxaa dhignaa labadaas number ayay u dhaxeeyaan inta badan okay random hoosna u geyn karaa saasay heleen markasta aan random taabto nambaradii hore dhan way isbedelayaan English kana ka soo jiidanaynaa okay Englishna waxaa ka dhigaynaa inay u dhaxeeyaan 45 ilaa iyo 88 okay kadibna ilaa qaanada qaybtaas hoose ka qabanaysaa hoos ayay u jiidaysaa ilaa meesha harta markaa gaadhsi waa sii daynaysaa okay hadda ardaydii maaragtay cali xasan caashe cabdi magan intooda waxaa la kala siiyey tirooyin randoma imtixaankay galeen haddii aan rabo maadooyinka ama ciwaanka inaan weyneeyo waxaa tagaya waa calaamadeynaya marka hore farta ayaa click ku siinaysaa waa ku haynaysaa ilaa meesha harta markaa gaarto kadib bold ayaa taabanaysaa haddii aad rabto qoraalka inuu dhexda joogo qaybtan ayaa imaanaysaa kadib center ayaa dhinaa okay sidoo kale haddii aad rabo qoraalka inuu hoos joogo sadarka inuu hoos soo taabto haddaan rabo qaybtan ayaa tagaya hoos taabsiyaa dhihi karaa okay calaamaday qoraalka hoos ha joogo hoosoo joogaa dhexda waxaa arkaysaa badanaa markuu god ku weyn wiirso hadda dhexda ayuu joogaa haddii aan rabo kor inuu joogo hoos inuu joogo meeshaas noogu daa okay haddii aan rabo backgroundka nooga bedel backgroundka waxaa ka dhiganaynaa blue bb ah qoraalkan waxaa nooga dhigtaa caddaan okay saa rabta ka dhigo magacyada waxaa rabta ka dhigo sidoo kale magacyada waxaa ka dhiganaynaa okay saas noogu daa markan waxaa rabnaa in ogaano ardayda isku dardarka buundooyinka meeqa keeneen sum ayaan inta qorinaa sum waxaa ula jeedaa isku dardarka buundooyinka okay waxaa taabanaya marka godkaa rabo hadda cali oo kale maadooyinkiisoo dhan marka laisku dardaro meeqa keenaysaa waxaa taabanaya shift iyo everka ayaa taabanaya equal ayaa soo bixayso kadib waxaa lasii u fiirso sum hore ayaa laigu sii qoray sum b9 kan ayaa lahaa b iyo 9 safkan dhan 9 waa 9 ilaa iyo d9 waa dooran karaa okay haddaa dhaho waa lisii aa ka laabto control command z waa taaban karaa ama option z taaba haddaa rabto control z taabo haddana waxaa ku celinaa equal toos oo qori karaa sum haddii aan lagu siinin parenthesis ama bracket ayaa furaysaa markaa furto godkan dhan ayaa calaamadeynaysa markaas farta muuska ayaa midig ku dhifinaysaa farta midig kadib waa ku jiidaysaa ilaa meesha harta markaa gaarto okay ayaa taabanaysa markaas qaybtan hoosena waxaa laysiisii suggestion autofill haddii aad rabto automatic ayay kugu buuxinayn ay ku leeyihiin
hawsha ayaa lagu soo gaabiyey waxaa taabanaynaa yes waa mahadsan tahay okay ardaydii nambaradaas kala duwan ayay heleen waa si randoma wax maaragtay oo qof maaragtay imtixaanka maaragtay si toos loo geliy nambar ma ahan waa si automatic haddii aan rabo inaan ogaado average nambaraday keeneen maxaa averageka ardaydan iskuulkan oo dhan haddii iskuulo kale oo la tartamayo kale averageka ay keeneen ardaydan maxaa waaye average okay averageka marka waxaa taabanaya calaamadda shift equal way soo baxday average waa laysiiyey automatic maadaama kor ku qoray automatic ay laysiiyey haddii aan rabo inter ayaa taabanaya kadib markaad taabto selka qeybtiisa hoose hoostaas waa ka jiidi karaa averageka qof kasta meeqoo keeno averagekiis maadooyinkiisa dhan marka isku dardaro averagekiis wuxuu noqday qof kasta okay haddii aan rabo inaan ogaado qofka ugu sareeya iskuulkan ama maadada maaragtay isku dardarka maadooyinka oo dhan qofka ugu sareeya meequu ahaa waxaa taabanaya oo keliya ama max qofka ugu sareeyey iskuulkan muxuu keenay maaragtay buund ahaan waxaa taabanaya equal kadibna max marka max taabto buundooyinkooda la isku dardaray ayaa dooranaya marka cafwan waa ku celina max markaa taabato waa inaa bracket furtaa ama qows kadib waxaad dooranaysaa buundooyinkii ardayda oo dhan waa wada calaamadeynaysaa waa E9 ilaa E13 okay kadib enter ayaa taabanaysaa waxaa u sareeyey qofkii keenay 240 aniga igu soo aaday si automatic ay igu soo aaday maadaama nambarada maanta dhan ay isbedbedelayeen haddii aan rabo kuwa kale dhan mu baahni inaad taabto no qofka ugu sareeya waa ogaanay oo waa qofkaas 240 ayuu keenay maadooyinka oo dhan la isku dardaray yaa ugu hooseeyey marka waxaa taabanaynaa minimum qaybta hoose marka imaano equal minimum value markaa taabto parents ayaa furaya waxaa dooranaya haddana nambaradii maaragtay samkooda okay kadib waxaa taabanaya enter okay waa liga diiday ku celiya lahay minimum nt ay kabado qalad ayaa dhamaa markastoo qalad dhaco waa lagu sheegaya calaamad guud ayaa laga saaraya okay qofkan ayaa u hooseeyey qofkan ayaa u sareeyay hadduu isbedel nambaradii random isku bedelayaan ma u baahnid maaragtay inaad random u gelisid marka imtixaanka ay tahay maadaama qof kasta waa la ogyahay nambarku keenay hadda aniga waxaa u geliyo keliya waqti badan inaan ku isticmaalo maraba sidaas darteed waxaa helnay qofka ugu yar 162 keenay waa qofkaas caasho ayaa keentay qofkan xasa ayaa qoray ugu dar okay u fiirso 240 ayaa ugu weyn xasan waxaa ugu yar 190 way isbedeshay anaga ugu yar had markaan okay markaan waxaa ogaanay tirooyinka ardayda imtixaanka yaa ku baasay yaa ku dhacay waxaas oo dhan waa ogaan karaa formula kale waa lasii gelin karaa hadda maaragtay inaan kusii fogaano formulada ma rabi wax kaliya aa barneed waxay tahay sum si loo qoro waxaan u dhigmataa equal sum nambarada aa rabta ama range labadaas dhinac waxaa lahaa range inta god aa rabto ayaa markaas meesha ku qoranaysaa okay kadib haddii aa rabto waa sii qorxin kartaa oo waa dooranaysaa godadka aa rabto o dhan kadib waxaad tegaysaa border kala sameey okay haddii aan rabo qofka englishka oo dhan ardayda meeqay keeneen maaragtay ardayda oo dhan buundooyinkooda meeqoo noqday inta ay taabana calaamadaas ka taabto sam dhinac waa laga siin karaa okay kadib waxaa sameyn oo keliya waa calaamadeynaya ardayda oo dhan marka laisku dardaro intaasay keeneen haddii aan rabo inaa qaybtan kale kusii koobiyey saas ayaa u jiidi karaa dhinacaas okay taasna waxay ahayd sida formulada loo soo geliyo Google Sheets waxaa rajaynaya inaad fahamtay sida loo isticmaalo haddii ay jiraan waxyaabo badan oo mugdi kaaga jiro ama aad fahmi weysay soo qaadanay markasta iloobin waxaa nogula wadaagi kartaa commentiga hoose insha allah okay insha allah waxaa isku dayi doonaa qaybo kale oo ka duwan oo xoogaa advanced inaan soo qaadano oo sida loo isticmaalo Google Sheets insha allah videoyasha dambe waxaan jeclaan inaad noo soo sheegtaan waxaa rabtaan si aan video u susmeeno okay marka heerkan soo gaarnay waxaan sameyn karnaa save wanooyaha inaan ka walwalna u baahnin oo naga dhumo kadib waxaad teganaa share haddii aad rabto qof kale ama macallimiin kale ama arday kale inaad la wadaagto ama shaqo hadday tahay qof inaad la wadaagto rabto share ay taabanaysaa
okay share markaa taabato waxaa kuusoo baxay pagekan qofka qoray adiga waaye haddii aad rabto link ahaan meel waa ula wadaagi kartaa dadka usoo dhigi kartaa ama qofkaa rabto email ahaan meeshaas ugu qoraysaa magaciisa way kuusoo bixaysaa markaas okay kadib done ayaa taabanaysaa hadda qof inaan u diro ma rabo sidaas ayaa ku daynayna markaas okay hadda u fiirso haddii aad tago filekii meeshuu ku jiray meeshas ayuu helaa kii hore iska xiraya u fiirso meeshas ayuu helaa tijaabo waqtiga la sameeyey iyo waqtiga wax laga bedelay qofka sameeyey waxaas oo dhan meesha ayaan lasoo gelinaya fileka iyo activity ugu dambeeyey ama waxyaabahii dhaqdhaqaaqii dhacay ugu dambeeyey haddaa furo oo ku laabto saas ayay soo muuqanaysaa qaybta 2 February ayaa maaragtay wax ku qornay marka haddii aad rabo inaad daabaco ama print ku sameeyo waa calaamadeynaya qaybtaa rabo oo dhan markaa calaamadeeyo farta midig ayaa ku qabanaysaa waa haynaysaa ilaa meesha rabtaa geynaysaa kadib waxaad tegaysaa file kadib print wuu ku siinaya marka soo printii kusoo bixi lahaa okay kadib waxaa rabtaa haddii aad rabto waxaad samayn kartaa formatka waxaa ka bedeli kartaa waxaa kaloo samayn kartaa next waa sii gudbi kartaa saamaa ku rabtaa haddii lagu dhaho ama daa rabto wax waa ku dari kartaa next haddaa sii tago waa liisoo download gareey downloadka ayuu tagay tijaabo file pdf uu isoo baxay filekii aa qornay oo ardayda ahaa sidaan ayuu kusoo muuqday pdf ahaan ayaa loo furay waa waxyaabaha qornay maxmin horaa laga ogaan karaa haddii aad qalina ku dul qori kartaa waxyaabaha rabtaa ku samaysan kartaa markaa soo daabacta kadib aa kusoo laabana marka Google Sheetskeena marka waxaa rajaynaya inaad fahamteen videogeena maanta oo ku saabsanaa sida loo isticmaalo Google Sheets waxaa soo qaadan oo kaliya maaragtay tusaale sahlan iyo waxyaabaha muhiimka ku ah si aad maaragtay si degdeg ugu isticmaasho intaas ayaa kusoo koobina insha Allah fadlan nagu taageer inaad kanaalkan like saarto subscribe ku noqoto فيديوهاش قدام بيسي يكون سو جهران وانا ما صنتهي اصحاب تقلنا جارسي ادنا وما صنتهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته